بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel aad joogtaan ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku ammaanyeelo. cidii dhibandhibka Allah ka qaado, cidii dan la Allah uu fiyo, inta baahan Allah deeqo, inta bugta Allah bogsiiyo, intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteena Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto. dalka, diinta, dadka iyo dowladnimadaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. waxaan ka hadli doonaa saddex qodob. qodobka koowaad, Ismaaciil Cumar Geelle shirka uu cilaansaday 30 Oktoobar muxuu daaran yahay? kelmadaa iga raacay. qodobka labaad, Puntland oo madaxweyne ku-xigeenkeedii go'aan uu ka soo saaray arrimaha Muqdisho, shir uu ku qabtay gaalkacyo, iyadana kelmadaa aan ka oranaya iyo si guud gaalkacyo waxyaabaha ka jira. qodobka saddexaad, dadkii dilka ku geystay galmudug oo maamada iyo saddexdeedii gabdhood dilay, maxkamaddii xukuntay, iyadana kelmadaan ka oranaya. intaanan gelin warka, waxaan iyadana ku dari doonaa laba nin oo soo jawaabay oo maqaaladii aan shalay duubay ka soo jawaabay, oo mid yahay wasiiru dowle Muqdisho jooga, midna yahay taliye ciidan oo Puntland jooga. labadaasna jawaab baan ka bixin doonaa. arta shirkeedii ayaan xusayaa 25 guuradeedii ayuu Ismaaciil soo dambaysiiyey. wuxuu yidhi ha la ii yimaado oo siyaasiyiintii hore, dadkii carta ka qayb galay oo xildhibaanada ahaa, intii ka qayb gashay oo maamulka ahayd, maxaan ku iraahdaa madaxweynayaashii hore, ra-iisul wasaareyaashii hore, dhammaan wuxuu casuntay dadkii Soomaaliyeed. laba ujeedu ka leeyahay, laakiin taariikh baan ka hormarinayaa carta waxa ay ahayd iyo meeshay ka timi. allah u naxariistay Abtidoon Xasan Guuleed Abtidoon wuxuu kula dardaarmay wiilka uu adeerka u yahay Ismaaciila, isagoo u qaba qof Soomaaliya inuu yahay. Soomaaliya markay burburtay, Soomaaliya midnimadeeda ilaali, aan ilaalino, inaan wax ku tarno mooyee Soomaaliya yaynaan wax u geysan. intaasuu kaga tegey. hadda Ismaaciil oo amxaaro korsatay wuxuu ka doorbiday taladii Malla Sanaawi oo ahaa cadowgii Soomaaliyeed. carta waxay ka dhalatay, allah u naxariistee, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, ahaana madaxweynihii Somaliland, cigaal, oo qabtay shir ku dhawaaqay inuu Soomaaliya isugu keenayo Hargeysa. shirkaa isaga ah waxay khatar ula muuqatay ninka la Malla Sanaawi oo ahaa cadowgii Soomaaliya. waxaa u muuqatay inuu jarjaro Soomaaliya. waa ninka alifay maamul goboleedyadan aad arkaysaan oo dhammaantood baddana gala, xuduudana la leh Ethiopia, oo loogu talagalay in laga kalluumaysto iyaga dhexdooda, oo mid uun la helo aakhirka baddiisa la qaato, isagiyo baddiisa la isku qaato. shirka isaga ah in la burburiyo oo shir kale uu iclaamiyo Ismaaciil ayuu soo dhisaan gareeyay ninka la yiraahdo Malla Sanaawi. Ismaaciil waa shirka ninka qaatay oo ka boobay oo ka afduubay cigaal, isagoo cigaal ka caraysan oo ka hadlayana waad aragteen, oo meel babliga oo 10,000 oo qof ay hor fadhido daawanayso kaga hadlay, oo Ismaaciil Cumar Geelle aad u cambaareeyay. shirka isaga ah haddii uu dhici lahaa Hargeysa maxaa ka dhalan lahaa? laba qodob oo aad muhiim u ah baa ka soo bixi lahaa. marka koowaad, Soomaaliya midnimadeedu waxay ahaan lahayd wax aan muran hadda ku jirin. murankan hadda aynu ku jirno oo gooni goosiga ahi gadaal buu ka dhashay. Cabdiraxmaan Tuurna ma qabin, allah u naxariistee, cigaalna ma qabin. Cabdiraxmaan Tuur wuxuu ku waayena taasay ahayd, xilka ku waayey, inuu diiday haba yaraatee gooni goosad iyo Soomaaliya in la kala jaro. cigaal oo ka mid ahaa raggii horay uga soo halgamay xornimada Soomaaliya, qaybna ka soo qaatay, waxaa dhici lahayd inuu isna madaxweyne noqdo. waxaa kaloo dhici kartay Hargeysa, maadaama Muqdisho oo caasimaddii koowaad ahayd, dagaallo iyo ay ka socdeen warloorana haysteen oo la kala haysaystayba gebigeedaba,
hargeysa inay noqoto magaalo madaxda Soomaaliyeed ee ku meel gaarka maadaama ay secondkii ahayd awalba halka waxa ka soo bixi lahayd marka midnimada Soomaaliyeed oo maanta murug ku jirin waxa aynu hayno oo la yiraahdo 4.5 oo najaasada ah oo meel aan uga baxno aan laanahay oo dadkii la kala qaybinayo qabiil loo kala qaybinayo mala sanaawi baa u soo dhiibay Ismaaciil isagaana noo keenay maanta wuxuu leeyahay waa u dabaaldegayna oo maxaan ka faa'iiday maxaa dhacday oo kale right away markii dawladii la dhisay oo uu ku soo baxay Cabdiqaasim Salaad Xasan ilaahay xifdiye mala sanaawi wuxuu arkay inuu khatar ku yahay wuxuu arkay inuu yahay nin dawladii hore wasiirka ahaa oo nin cabqariya wax og ah labo inuu ahaa nin ahlu diina wuxuu ka baqayay markaa in qorshayaashiisa u shaqeyn waayaan Ismaaciil wuxuu ku amray inuu la diriro dawladii uu dhisay carta ku dhisay dawladdu carta ku dhisay oo qabiilka ku dhisay oo isagu dhibaatada u geystay oo madaxweynihii uu colka u beeray oo uu yiri warlooro kama soo qayb gali karaan oo warlooradii ay xamar ku sugayaan oo dagaal ku hayaan buu haddana isagiina wuxuu amray inuu ku biiro oo la diriro wuxuu noogu dabaaldegayaa marka anigu ma garanayo dhibaato aan Soomaaliya Ismaaciil Cumar Geelle iyo mala sanaawi u geysana ilaa ay hadeer ma hayno farahana kuma hayno Soomaaliyana waxay badbaadi lahayd markay intay tuurto 4.5 ay dib u heshiiso oo ay ama gobol ama tuulo ama degmo ama say doonta ahaatee ama qof iyo cod loo dhan yahay dadka Soomaaliyeed ay isku doortaan dadka wax galkaana wax loo dhiibo dadkii maalinta naga soo raacay carta ayaa naga harila haday xildhibaan yihiin haday siyaasi yihiin intii un baa recycle ku jira kulligoodna Ismaaciil baa wuxuu yahay role model Ismaaciilna muxuu yahay Ismaaciil waa ninka macruufka oo la yaqaan hadda koor baan ka sheekay wax uusan ka shaqeyn lama arko wax kasto illegal hub la gado oo dad lagu laayo adduunku kaga magacaaban yahay inuu yahay arms dealer khamri inuu ka shaqeeyo inuu markiisii hore ka shaqeyn jiray haween la gado wax uu ka tagay oo xaraana ninka ma jirto oo ka xaraana odaga xafaayad xiran markii lixaad buu rabaa hadda inuu istoorto wuxuu rabaa marka reer Jabuuti oo dhamaantood fikirkii iyo aragtidii Xasan Guuleed Abtidoon Allah u naxariistay oo ahayd midnimada Soomaaliya iyo Soomaaliya in la wax la taro kulligood aaminsan dad ka Soomaalisan aysan jirin ayuu kulligood hostage ku haystaa hatta aana isaga gada wax uu bixiyay lama arko qoyskiisa iyo isaga ayaa waxay ku noqdeen ayax saa u cunaya sida kuwa hadda naga noo samaysmay kulligood isaga koobiyeynaya caruurtoodii iyo naagahoodii iyagii bas garbordaya isaga la koobiyeynaya mawjeeda Ismaaciil wuxuu rabaa marka reer Jabuuti inuu ku yiraahdo Soomaa aragtaan Soomaaliya oo over 20 million people ay degan yihiin dhulkeeduna uu dhan yahay 637 oo square meter badeeduna ay tahay 3333 square meter ay tahay badeed ana u taliya laba arimood buu ka rabaa inuu Soomaali ana u taliya yiraahdo oo marka uu buunbuuniyo isbuunbuuniyo qodobka labaadna uu yiraahdo haddaad wallahi imaqli weydaan reer Jabuuti sidaas meel la idinku shirshirinayaa intaad islaysaan kuwa aan shirshirinayaa maaragta kuwaas un baad limitiin idinkuna meelahaas aad ku shirshiri doontaan ujeedadiisu waa inta inuu mar kale isharxo isagoo xafaayad xiran yaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadaas dhibka ka dulqaado wuxuu sameeyay markii uu arta qabtay kadib mar dhexe wuxuu samaystay saan oo kale wuxuu isugu keenay niman aan isla hadlayn oo aan isa salaamayn oo isdagaalay buu qolal soo wada fariisiyay sida aad xasuusto shirkan hadda uu soo wadana kaasoo kale uu rabaa inuu ka dhigo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif oo isaga fadhiya oo aan isa salaamayn salaanta iska qaaday Siilaanyo iyo Gaas oo isdagaalsan oo aan isa salaamayn oo israbin waa isu keenay wuxuu xilligii dawladii hadda dhamaatay oo farmaajo ay timina waaba isqaawiyo waa kii Kenyaatiga la saftay oo Soomaaliya ka soo horjeestay waa kii kula tartamay intay Soomaaliya uga tanaasushay kursigii African Unionka waa kii ku qabsaday igad iyo African Union baa mid looga tanaasulay kii kale uu nagu qabsaday yacni wuxuu ahaa mujrim soo dhigtay xilliga uu carta joogayna dadkii ka carooday waxa kamid ah Digil iyo Mirif oo kaba baxay shirkii shaati guduud iyo kooxdiisii uu watay oo dhan markaas wuxuu soo Allah u naxariistay wuxuu soo samaystay
dad isagu soo samaysto meelaha ka qabqabsaday xildhibaan uga soo dhigay ninka dhibkiisii baan wali la noolnahay ujeedada uu ka leeyahay shirkaasna waa inuu isku bumbuuniyo laakiin Soomaali dhibka ugu jiraan idiin sheegaya Ismaaciil shirkiisa ka qaybgalkiisa dadkan Soomaaliyeed oo ama ra'iisul wasaarayaal hore aha ama madaxweynayaal hore aha waxaan kula talinayaa shirka ka qaybgalin waxa la ii sheegay Cabdiqaasim Salaad Xasan Allah xifdiyay inuu san tagayn hay'ad cadawgii la diriiray isagoo ah buu rabaa haddana inuu isku soo saaro oo doorashadiisa sanadka soo socda ah oo isagu isku soo saaro yiraahdo waa kaas oo nin balaa baan ahay oday Soomaaliyeed baan ahay kaaba qabiilka Soomaaliyeed baan ahay maaragtay waxa waxaad ogtiin dagaalkii Muuse Biixi uu la galay SSC inuu qayb ka ah waxaad ogtiin inuu ciidamadiisii hiil walaal oran jiray oo uu keenay area meesha la yiraahdo Hiiraan ay ka shaqeyn jireen wax kale ay ka shaqeyn jireen la dagaalanka dawladnimadii Soomaaliyeed shabaabna ay la shaqeyn jireen hubkana iyagu ay keeni jireen dadka lagu leynayo shabaabku ay dadka ku leynayaan waxa uu caan ku yahay maxaan ka faa'iideynaa maxaa ina ka soo gaaraya shirka laba arrimood baa ina ka soo gaaraya waa marka koowaad ninka mujrimka ah baynu dadka dhibban oo reer Jabuuti oo beerka dhulka ku haya oo gaajadu ay dishay oo fakhrigu uu wada saameeyay oo qaar uu korontada ka jaro iyo mid uu biyaha ka xirto iyo adoonsiga uu ku hayo baynu uga hiilinaynaa oo uu si qabanaynaa gacmaha oo qodobka labaad caalamku marka uu Donald Trump leeyahay dimuqraadigu dawlad ma leh maamul ma leh leader ma leh Soomaaliya isoo xasuusiyeen they have no government nothing no president nothing madaxweynaha iyo isaga amaanayna waa arkay Donald Trump waa nin balaale ninka la caayo leeyahay madaxweynaha ma hay dawladna ma leeyahay yani dadkaas lawiyada isla dhacaya markay gaal arkaan saa u gariirayo oo jaraynaya ba madax noo ah sababta uu noo caayo Donald Trump Ismaaciil Umar Geele wuxuu ka mid yahay dadka faafiya ana Soomaali iska leh xukuumana marka waad u camiraysaan Soomaaliya ceebteeda aad ka shaqeynaysaan waxaan idin kula talinayaa inta isku xishootaan ummadda dhibaato kale ha u geysaan arta waxaan 4.5 ahayn oo ka yimi ma jirto dawladdan hadda aan haysanay in bagaati baa lagu dhisay dawladdiisi waa tuu burburiyay intuu dhisay buu haddana la dagaalamay oo burburiyay marka maxaa ku sharfaysaan oo artayna ka soo raacay oo inoo yaala waxaan qabyaalada ahayn oo ka soo raacay bal noo sheeg dad Soomaaliyeed oo dawladda ka duntay baan ahayn dadkii walaalaheena ahaayoo Soomaaliyeed ninkii hoggaanka u ahaa oo na dhisi lahaa inuu na burburiyay miyaan ku amaanaynaa oo ugu dabaaldegaynaa arrintaa ka laga fiirsado siyaasiga halka tagayow ka fiirso ummaduna ishay kugu haysaa inaadan wax gal ahayn doorashana aadan weydiisan karin ba halka ka soo baxaysa kalmadda intaas ka horniya qodobka labaad madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa qaraar ka soo saaray gaalkacyo wuxuu yiri nin mas'uul ka ah dawladda Puntland ma aadi karo xamar hatta hadii uu xanuunsado iskuma soo daaweyn karo Addis Ababa aadiya shalay markaan hadlayay hadalkaygi waxa ku jirtay aad baan uga xumahay inaan iraahdo laakiin reer ahaan anigu reerkan ka soo jeedo dawladnimada Soomaaliya waxay ka mid yihiin caqabadka waaweyn oo hortaagan that's a fact runta laga wada hadlaa markii la rabo in la wada hadlo ma aha dadka reer Puntland ma aha shacabka annaga ma aha waa dadka siyaasiyiinta noo ah waxaa noo hormaray oo noo horgalay intii noogu liidatay waxay arkayaan haddii dawladnimo timaado inay meesha ka baxayaan oo dad macnaa la helayo oo systemku isbedelayo si ay hostage noogu haystaan marka waxay doonayaan in ay soo hormaraan oo iyaguna xukumaan oo ay naga horeeyaan saa darteed ma ogola dawladnimo inay dhisanto Muqdisho lama aadi karo laakiin sababo waa la aadi karaa sababo ogaada dhul Soomaaliyeed bay haysataa waa dawlad cadow ah waa dawladdaas ku farabaxsanaysa Soomaaliya badeedan qaadanaya iyo dhulkeeda waa dawladdaas duulaanka ku ah Soomaaliya iyo jiritaankeeda la dagaalamaysa iyadoo waa la isku soo daaweyn karaa maybe Israa'iilna waa la aadi karaa inay qorshaha ugu jirto iyo xisaabta in la kala go'aana way ka shaqeynaysaa Puntland waa siyaasad xumo waa haba yaraatee waxaan la garan karin xamar ninka jooga hadduu ibliis yahay ibliiskii keenay baa Puntland madax ka